Assalaamu calaykum waan idin salaamayaa dhammaan inta daawanayso muuqaalkan fadlan intaa ku cusub tahay channelkayga subscribe gambalelkan ku dhufo si aad ula socotid video dambe soo gelin doono maanta halkan waxaan u fadhiyaa in aan reaction soo bixiyo wali hore reaction uma soo bixin laakiin hadda laga bilaabo quraanka recitationka oo kale saac amal waxaan rabaa in aan reaction ka soo bixiyo halkan uma fadhiyo in aan his reaction ka bixiyo in aan prank reaction ka bixiyo laakiinse in aan quraanka wacdiga reaction ka bixiyo waayo dad reaction ka waxay ka soo bixiyaan prankiga iyo waxyaabaha kale laakiinse ma arkin qof Soomaali ah oo ka soo bixinayo reaction quraanka amsane wacdiga kale sheeqashana wacdiyaan anigana marka waxaan doonayaa fikrad ahaan in aan reaction ka soo bixiyo quraanka recitationka iyo wacdiga sidoo kale kasoo bixiyo reaction waayo adigana xasuus ayay ku noqonaysaa waxa laga yaabaa inaadan daawanin ama aad arkin balse maanta markaan reaction kasoo bixiyo in aad daawatid aad qeyrka ka heshid anigana sidoo kale qeyrka aan ugu helo asxaabtana waa la wadaagaysaa sida aan filayo marka aan u gudagalno reactionka marka reactionkii hadda inoo bilaabanaya waa Sheekh Xuseen Ali Djibouti dadka wuxuu yaqaanaan Sheekh Xuseen Djibouti qiso qabsatay nin saxaabi ah oo aad u murugo badnaay waqtigiisana ku dhameystay murugo oo kali ah marka balayno daawano عطاء السليمي رحمه الله أيا نن تابعي أبو هايو آذو مرق بدن سلف صالح وعلى يقول يا شيخ مرق تاذن آذ بأو مرق واد مرق بدن تهي ذاتك محاد دير تهي بألقو يري وأني قال لي صدو السنو إساقو قصلين لما أرق صدو سنو السمادة ما يقين بالليلي دولكم مصداو يقول سعوناي وحيري صحابي صدو سنة أساقو قصلها أفكا كلافوراي عدنا ميسان أرق صدو سنة cirkan wuu eegin asagoo eegay cidna maysan arag markuu soo hoos ayuu fiirinayaa murugo ma dhaafta baaliyay marka sababta ku qaliftay in saxaabigaas uu saa u murugoodo maxay tahay adiga ma ogaan kartaa sababtaasi waa maya halkan aan ku ogaanaynaa sheekh ayaa noo wadaya qisada siday tahay sababta uu saxaabigan u murugaysan yahay ninka meel uu cadahay meel ka madow dadkaasi aakhirada ku weyneediyaka markaasuu ku yiri الموت في عنقي والقيامة موقفي الموت في عنقي والقبر بيتي والقيامة موقفي وعلى الصراط طريقي ولا أدري وربي لا أدري ما يصنع بي وربي لا أدري ما يصنع بي وحيدي محان نمرقوني محان لمرقوني مركا سيدو الشيخ نوشي غايو نينك صحابي waxa uu la murugeysnaa ma aha in uu wax ka maqnaa in uu wax uu cuna la'aa in uu dhibaato kale uu dunida kula kulmay laakiinse laba shay ayuu ka fikiray labada shay oo ah geerida iyo qabriga ayuu ka fikiray mar walba qabriga waxa laga kulmay dhamaanteena waan ognahay لكن سؤاشي تالا ميشا وحاوي aniga hadda kula hadlay iyo adiga idaawanayso maxaas ku haynaa dunidan oo wanaag ah maxaa amal ah oo la hortagi rabnaa Allah dunidan berito waan ka tageynaa maanta waan ku noolahay berito meel kale ayaan tageynaa meeshaas oo ah qabrigana amalkaaga kali ayaa ku raacaya maal ayaan ku raacaynin dharka aad maanta ku labisan tahay ayaa lagu la geyn asxaabtada saaxiibyaalka walaalahaaga hooyada iyo aabaha ku dhaleen ayaa kula galayna qabriga marka sabab oo loo murugooyo meesha way taalaa laakiinse anaga maxaanan u murugoonaynin oo aan ugu murugoonaynin qabriga ilaa oo adaa naga saari kartaa dhibaatadan hadda maanta ma haysato dadaalkeena iyo halgankeena aad buu u yaryahay marka muslimiinta dhamaan inta idaawanaysa waxaan idinka codsanayaa inaan u soo dhawaano Allah subhanahu wa ta'ala in aan quraanka kitaabka gacanta midigta aan ku qabanno si aan qabriga ilaahay inoo wasiiyo si aan u helo naxariista Allah
maxaanan u murugoonayn maxaan la murugoonayn buu yidhi geeridii baa qoorta ii suran qabriguna waa aqalkaygii qiyaamahana waa lay joojin doonaa 40,000 oo sano buu ibnu cabbaas wa fii yowmi kaana miqdaaruhu 50,000 sana 40,000 oo sano buu ibnu cabbaas ayaa la joogi doonaa banka qiyaame 10,000 oo sanana xisaabtaa ku dhammaani doonta bal saacad halkaa joogso maalin ma joogi karna meel 40,000 oo sano ayaa sidaa loo taagnaa buri ibnu cabbaas oo mufasirkii qur-aanka walaalayaal qiyaamaha maalinka markii la tago adigoo keli waxaa garabkaaga taagan ee ku caawin doona maalinkaas waa camalka iyo salaada aad tukanaysay dunida qiimo ma lahaan yaana qiimeynin dunidan saxaabadii u dhawaayeen nabiga markii qisooyinkooda aad dhageysatid ayaa adiga ilinta kaa imaanayso dunida qiimo ma lahaan dunida maanta waan ka tegaynaa halkan kuma noolaan doono bal saacad halkaa joogso maalin ma joogi karna meel 40,000 oo sano ayaa sidaa loo taagnaa buri ibnu cabbaas oo mufasirkii qur-aanka wax kulaylka kaa haraynayaa ma jiro meel la fadhiisanayaa ma leh meel biyo laga cabbayaa ma leh geel la hadhsanayaa ma leh yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaydin sha'nun yuqniihi waliba waa maalin baa ilaahay yidhi waa maalin habeen lama sheegin yowma yanduru lmar'u maa qadamat yadaah yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma yanduru lmar'u maa qadamat yadaah yowma yacadu الظaalimu calaa yadayhi yowmaydin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya dalika yowmu taqaabun qur-aankaa lagu sheegay waa yoom waa maalin keliya habeen male maalintaas waa maalintaas ay sugaysa buu yidhi jidka siraanna waa dariiqan dul maraayay rabbigay marka lay hor joojiyeen waxaa kala kulmi ma aqaana buu yidhi laa habeen bay seexdaan walaa maalin bay seexdaan dadkii aakhiradu ay qalbigooga ku dhibicday ayakoo qosley lama arkin ayakoo adduunyo dhisanayna lama arkin cumar binu khadaab radia allaahu canhu oo saxaabadu ay hareera socdaan ayaa meel masbalada meeshan qashinqubka la yidhaah ee wasakhda lagu shubo ayuu cumar iskor taagay markaabay saxaabadii iyo raggii la socday ajillada ahaa way dhibsadeen ilaa cimaamadahoogii ay sidaa yidhaahdaan markaasuu cumar ku yidhi haadihi dunyaakum allatii taxrisuuna calayha adduunyada aad maalin iyo habeen aad u dadaalaysaan halkay ku dambaysaan na tusinaya eega buu ku yidhi waa taas adduunyadu qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh waxaa qiimo leh waa diin ninka diinta qiimeeyaa qiimo leh hegtiisa ina akramakum cinda allaahi atqaakum camalka fiican aan samayno kitaabka qur-aanka aan midigta ku qabanno khayrka aan nin walba ha isku dayo si uu khayrka ku faafin lahaa haddana waa inuu mar kale iyo reaction kale waa ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada